labadii laacib ee ugu dagaalka badnaa Premier League qadka dhexe hadda hal koox ayay ka wada duuli doonaan inna caadi ma ahna Declan Rice iyo Bruno Guimaraes oo kooxda Arsenal ay ku soo qaadatay 75 milyan message-kii ugu horreeyay waxa uu qoray marka Declan Rice asagoo ku soo dhaweynay wuxuu ku yiri ku soo dhawaad kooxda Arsenal laakiinse dagaalkii labadeen ah wuu dhamaaday hal koox ayaan joognaa qadka dhexe ayaan ka wada duuli doonaa ku soo dhawaad ayuu yiri inna caadi ma aha laacibkan kaliya in Arsenal ku soo qaadato 75 milyan oo City ay ku soo qaadato Anderson 117 milyan Morgan ay ku soo qaadato Chelsea 117 milyan sidoo kale Tottenham ay ku soo qaadato 100 milyan Tonali waa laacibin da'yar ah oo wali la hubin iyo laacib soo tijaabiyay 4 sano ugu dambeysay noqday laacibta ugu wanaagsan dadka dhexe Premier League number 6 kubadda hayn kara yani baasi kara burburin kara inna caadi ma hadda Rice wuxuu ka ciyaar doonaa number 8 Odegaard number 10 fursado badan ay abuur doonaan gooshana oo ku sii dhawaad doonaan goolna dhaliyaan sidoo kale assist ay bixiyaan laacibkana qadka dhexe number 6 waa loo diiday doonaa kubadda haynaayo qaybinaayo soo burburinayo wax kale waay Arteta wuxuu haystaa laacibin tiro badan qadka dhexe laakiin hadda wuxuu rabaa inuu dhiso daafaca iyo sidoo kale weerarka waa arki doonaa Arsenal oo sii xoojisa iyo Premier League Champions oo soo laabto Champions League rabaa inay qaadaan waa arki doonaa ku soo qora commentiga Arsenal fans waxay ka leeyihiin Bruno Guimaraes inuu ku soo biro kooxda Arsenal wax kale waay